بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وعن هلكن آد uga mahadcelinayaa dhammaan ahlu sunnati wal jamaaca meel kastoo ay joogaan inay fahmeen ama qaateen Sheekh Cabdirashiid Cali Suufi inuu yahay nin ahlu sunnati wal jamaaca nin suufi ah waliba waxaan idinku sii darayaa inuu yahay nin ashcari ah marka waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa خياش يا معلم النور سيدا قيمها بدن أسود دوية شيخة. لكن درر كأنوار تمشينا وإمد حقيقة وحي يستاهلان إن معلم ما هنا ما بدل لا جو وأنا يدري إن شاء الله بإذن الله وكسر عيني سير خليفك الله يحفظه ويطول في عمره وحيقصه مر قدر مركو تأسيسنا معهد كاي جامعة وحيل أدوب بحري كجري ماشاس marka ظروف baa iska yar jirtay oo aan ka cudur daartay oo aad buu isugu adkeeyay ilaa ma waa inaad meesha timaada laakiin maqaadirtu ilaahay maanta ay keentay alxamdulillah thumma alxamdulillah inta ka horna wafaqani ilaahu ilaahay baa waafajiyay inaan sayidkii macallin nuur soo booqday halkaan ugu imid saciid yahya raxmatullaahi calayhi baa booqashay igu keenay marka شيخ سيدك وقرني إنسان مشغول ضد بدن كواه وضد إكرام كواه مشغول كواه أبو صفك سوق قالوا مركزو نسأل سلامي مركزو يريد كان وشعلي شوفي شعلي شوف وما شرب حد لقي ماشي إنه الكلمة مركزو لك حيو قل بدها تفريسيو سيجارة نوم أبو سيو ما قرني إنسان الحمد لله ثم الحمد لله إلهي فضلك سيدنا بركة راسنا أنو سوق قرني هذا الحمد لله مريه يخيك وانو أرقنا run ahaanna horta yaani hadalka kale iloobine dhalinyaradii yaryarkii subaca akhriyay maanta wax ajaa'ib laba iga soo baxay wax ajaa'ib la iga soo baxay allah barakeeyo hayelay arin hal loo haydin ayay maanta hal nimankan u haleen hooriska in la hooriyo sad la socotaan ba ilaa ugu weyn ee ku jirta tajwiidka waxa weeye in meel aan saxayn laga bilowdo nimankaas aad arkayseen هذا قاركون دو هرونيين قاركون دو كتجي تصوص ما معنى هو أي كتجيهن معناه هذا واحد ما الآن لا لقب سنكرين والمعنى هو صح يدين ويا المركز كده هي هو ما لقب لو سيد إنه كان عبدا شكورا لو كلنا ويا غريه وتمام وسيد اللي ربيوي هذه أدبان إذا كوما عنا هي لما أهل السنة وإني أجادان عبد الرشيد على السوفي المشي على السوفي لما أنت تدبا inay yihiin dad ahlu sunnati wal jamaaca dad ashaacira ah dad suufiya ah inay yihiin nimankan wahaabiyada ah ayaga baa ku qaraabta maahane asagu waxa soo dhan kama leh marka waxa soo dhan cadeyntii maanta waxa idin keeni doona insha Allah ta'ala inuu yahay nin ashcari ah cadeynteedii bal hoo iga dhah وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله إمامك جليل كأه اعلم يا أخي بيري ومقدمة كتابك وحل لها تبيين كذب المفتري على الإمام أبي الحسن الأشعري قالوا الإمام كجليل كالإمام أبي الحسن الأشعري بين كأبوري وكبين أبورتي وعقائدي سواء كشري ودباتوي مجلس مركا إمام كان جليل كأبو القاسم بن عساكر كتاب ألف إلى تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري مركا كتاب كاي سجع حكوية المقدمة دي اعلم يا أخي ولكن كتاب كان أخرنا يوم وقو وفقنا الله وإياك لمرضاته رضيه سألي أبي والله نوافجيه وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته كوا إساق كبقى يحنا قد حق تقاته وحكله هو يقتر هذا أيضا إنه يهي نين أهل السنة والجماعة أو ولبا شافعي أيضا واتنا أساق أو ديده هيا إن بسين كاللغتكو أو لي ويل كان يركا قراءة أخرنا هيا الحمد لله مقبل أبا هيا بسين كبلوا بالله بسم الله بسين كبلوا بالله أيانا واتناه إيجاهو الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحاسدو كلا أن ربا أيضنا إنا كتسو دنع إن قرآنكو وقارا هيو عددك دنتي asaga oo yaqiin u haysta meesha wahaabiyadu kuwan khawaarijta ay leeyihiin ma gaarahayo mana banaana asagii oo waliba dhahayo anigu yaqiin baan u haystaa waliba dadkii dhintay oo
aabihiis iyo wixii saaxiib la ahaa iyo ehel ahaa oo listiga aabihiis ku jiro dhan awraad iyo wardi buu u akhriyaa iyadana waa tanahay igaho aniga aba raxmatullahi calayhi ma jirto khatmo u khatmi qur-aanka listi dheer buu akhriyi jiray oo magacyaala aad u fara badan waqti dheer ka qaadan jirtay hebel 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 magacyadooda ugu duceeyo oo u hibeeyo qur-aanka u akhrinayo aniga hadda ma koobi karo markaan qur-aanka hadda aan dhammeeyo waxaan idhaha intii liiska aabahay ku jirtay u ducayn jiray ilahay oo adaa garanaya igana gaarsii mulku llahi waasic waa yucdi alaa yumnac marka yaqiin dhabaan anigu haystaa insha allah in qur-aanka thawaabkiisu u gaaraya insha allah tacaala lilmayid wa shay cadiim وهدية كبيرة كبيرة هذا وين هذه المنافع ما نقدر ويد حج في دحديسة قبل الحج ندقه غير مكاه وماشى قرية عند قنين حافظ عند قنين قرية عند قنين مساعد عن قوة تكنه وذاكر وي ذكري شبضا وأنا غير مكوي أبن عن جدنا وأبياشي أو ياشي وأنا نسور وريشان يقول هو الله أحد صدح بقول بان أخريا بيولي maalintii marka boqol wuxuu yidhi aniga akoonkayga ku shubta taasuu ka cabiray boqolna waxaan u qaybiyaa buu yidhi aabbiyo hooyo konton iyo konton baan kala siiyaa buu yidhi waan u diraa boqolna waxaan u qaybiyaa buu yidhi in alla intii dhimatay ee tagtay ee ahalkayga qaraabadayda asdiqaadayda dadkii aan aqaynay mid baa mid kusoo hagaagtaa buu yidhi waaxid qul huwa allah intaasaan diraa buu yidhi maalin kasta dooduna waata iska taagan oo qur-aanku marka la aqriyo in amwaadda loo hibeeyey inay gaaraysa inayna gaarayn dadku waatay culimmada khilaafkooda wax sheegaan ma ogtahay laakiin aniga ilahay yaqiin buu isiiyey buu yidhi saasaan u ahaa wuxuu yidhi marka wuxuu yidhi nin dhalinyaro ah oo dhalinyaronimo ku dhintay oo aan aad iyo aad u jeclayn oo waxaa jiray buu yidhi hooyaday qaraabo fog ay yihiin laakiin dee asxaab baan ahayn oo noo imi jiro isagoo dhalinyaro dhinto ninkaan waxaan siin jiray buu yidhi hal qul huwa allahu axad baan u diri jiray berdambe unbaan iska wada unbaa waxay u soo dhacday buu yidhi qul walle isagaan siinayay dad kaloo iga dhowaa jiray aan siiyo waan ka soo leexay buu yidhi qolo kale aan u niyeystay muddaan ku wada buu yidhi waxaa ii timid buu yidhi gabadhaan walaalanahay oo soo salaantay oo iga yar isagu muddaa 8 jir weeye iyaduna ma yara waxay iga yar tahay buu yidhi way soo booqatay salaamu calaykum fulaanow hooyan ku riyooday hooyadeen baan ku riyooday igu salaam bay tiri una bishaaray wiilkayga in khayrka uu isoo dir isoo gaaro laakiin wiilkayga waxaad ku tiraa ninaan qaraabo ahayn oo hebel la yidhaah waa iisoo ashtakoodo wuxuu yidhi wiilkaaga hadiyadu iisoo diri jiro oo iga go'day baa jirta maalmahan maxay tahay marka gabadhii walaasha waxay ku tiri buu yidhi ninkaa magaciisa way ii sheegtay hooyo laakiin waa iloobay ru'yada markaa way igu sheegtay laakiin waa iloobay بس أنا كرتي وهبل وأن هالقل هو الله أدري جري وأنا أسوء علينا ورده أدون كله ده علوم الجوك تودنا شو تلان أي ده بيقول القرآن قفل أنت ما قاريه كم يليه يا أخي تهزأ إلى يسير لأنه حوري إن أدري جري قل هو الله أحد ويلكاس أو يدعي قرارين قف أني إلهي أن أهل مؤمن weliga cidna uma sheegin inaan ka soo ceshadoon dad kale siiyey cidna ma ogeyn yaa hooyaday soo kaciyey oo ay rooyo igu timid can dariiq ukhti oo igu leedahay hadiyadii aad hebel u tegi jirtay way kala go'day maxaad u goyshay marka ma ayaan ka dhigasheen allah acdaani yaqiin halka hadalkaa waxaan ku keenay manaaficda ilmahaagu bacda wafaatika ay kuu tari karaan waxaa ugu muhiimsan tan aakhiro sadaqayna kaabi quraanka inta ku aqriyaan ku niyeystaan haddaba intaas oo dhan waxay caddayn u tahay qof iimaankiisu uu adag yahay caqiidadiisu adag tahay ku rayahay nin qalbigiisu nuur ka buuxa inuu yahay marka taa inaa saa u fahantaan weeye taasaas ula socdo insha allahu tacaala hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh